adduunyadu waa safar aad u dheer oo aad kala kulmi karto marxalado kala duwan isla markaana ay wanaagsan tahay in aad kaashato samir iyo dulqaad waayo dhibkii aad maanta la kulanto berrito ayuu tusaale ku yahay wuxuuna ku ifin karaa waxyaabo badan oo markii hore ka daboolnaa guuldarrooyinka ka yimaada dhinaca arrimaha guurka waa imtixaan horey kugu qornaa isla markaana ma wanaagsano in naftaada aad hiigto waxaa habboon in aad ogaato wax waliba markii aad yareed in lagu qorayo marna aadan gafaynin axdiga waa shay qaali ah laguma cayaaro oo ma aha hadaf aad adigu gaartay isla markaana aad ka qaadan karto go'aankii aad doonto waa shay aad u adag isla markaana haddii aad burburiso ay tahay mid diinteena islaamka ay si weyn uga dayrisay axdiga oo lagu fududaado baabi'intiisa waxay dhibaato dambe u tahay qofka mustaqbalkiisa maalin uun ayay kusoo butaacaysaa waxaana maalintaasi abaalmarin uu u helayaa calaamad uusan weligii iloobin hadduu ku dhinto iyo hadduu ka badbaadaba 24 bisha labaad ee Febraayo waa maalin mugdi u ah Fuaad waa maalintii ay geeriyootay gacalisadiisa Layla waa saacado murugo badan oo ku qaatay isbitaalka isagoo wehelinaya meydka gacalisadiisa sidoo kalena waa maalin ay shaqo xoog leh ay u taalo maadaama ay soo dhamaatay waqtigii dhaqaatiirta ay haysanayeen meydka Layla imtixaan adag ayuu galay waayo wuxuu isku duwayaa dadkii meydka la wareegi lahaa iyo dhaqaatiirtii Kenyaanka ahaa maadaama ay marxuumada u dhimatay allaha naga wada najiye cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS Fuaad marxalad adag ayaa la soo gudboonaatay meel uu wax ka qabtana ma garanayo waxa uu taagan yahay isbitaalka iridiisa waxa uu isweydiinayaa ma qaybta duulimaadka ayaad ka bilowdaa iyo shirkadda Juba Airways oo horay u ballan qaaday in ay meydka galbi doonto ma shacabkii Soomaaliyeed wacad ku maray in ay xil gaara iska saari doonaan meydka Layla ayuu aada imtixaan adduun ayaa haysta wuxuu sameeyana ma garanayo imtixaanka bad uu ilaahay ku siiyay habeen la iskama qaado kartida iyo dadaalkuna waxa ay durba soo dadajiyaan natiijada rasmiga ah Fuaad waxa uu diyaariyay shacabkii Soomaaliyeed ee meydka galbi lahaa oo meydka Layla lagu qaadi doono waxaana nasiib iyo caawiye ayaanba u yeelatay shirkadda caalamiga ah ee Juba Airways in ay noqoto diyaaradda lagu geynayo meydka Layla gudaha magaalada Muqdisho isbitaalkii ayaa la wada yimid waxaa loo baahday 4 qofood oo meydka ka soo bixiyay isbitaalka si loo saaro gaariga 4 qofood waxaaba kaalinta koowaad ka noqday Fuaad oo dadka badankoodba ay ku xamarayeen inuu yahay nin aan damiir lahayn maadaama qofkan ay balan iyo axdi uga baxday walibana uu ilaahay uga abaalmariyay isla markaana uu daba taagan yahay waxay ku tilmaamayeen nacas aan dantiisa aqoon walibana ku bixinaya hantidiisa iyo noloshiisa meel aan munaasab ahayn maba ogaba in uu yahay qof bili aadanimada iyo ixtiraamka wax weyn ka yaqaana isagoo kalena loo baahan yahay in lagu daydo maadaama uu ihsaan u sameeyo qof muslim ah hadduu qofku qaldanaa iyo hadduu saxnaana la doonayo in aad si bili aadanimo iyo si muslimnimo aad ugu qabato waqtigu wuxuu isguraba durbadiiba gaarigii ayaa la saaray meydka waxaana loo galbiyay dhinacii airportka si loogu qaado magaalada Muqdisho
waa ayaan daro aad u xanuun badan xilliga geerida Layla ay ku soo beegantay maadaama iyada oo nafsi xoogan gashay nafteedii ay noqotay mid waqtigeedii uu soo dhamaaday waxaa kaloo naxdin iyo amakaagba ah in ay ka mid noqotay dadka farakutiriska ah ee Soomaaliyeed ee u dhintay allaha naga najeeya cudurka HIV/AIDS intaasoo naxdina iyadoo ay taagan tahay ayaa shacabkii la saarnaa meydka diyaaradda qof walba waxa u shidnaa muujad gaar u ah hase yeeshee Fuaad boholyowga gaarka u ah waxay ahayd maadaama dhammaan hantidii uu haystay oo ku bixiyay baxnaaninteedii iyo waliba soo galbintii meydka isla markaana hadda uu yahay cayr aan waxba haysan balse uu wali xoog sii saarayo sida uu qayb uga qaadan lahaa asturidda meydka Layla oo muhiimad gaar u ah Fuaad la soco qaybta toddobaad qisada naxdinta leh ee ku dhacday wiilka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Koonfur Afrika qisadan waxaa qalinka u qaatay isla markaana idin socodsiinayay anigoo ah Cabdulaahi Balwan دمع ما قال
عدايو بلها بلها برن نفس الروح قدوتا دمبر مالي مايه متكدا عدايو بلها بلها برن شيء الفكرة هو كما سويت لي حكوت على كويري حكوت على كويري شيء الفكرة هو كما سويت لي حكوت على كويري